السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسان قيرتها وذا سيدة توسكا نوضع ونساي ملك استوديو نداد كجوكتان كسود هذا برنامج كان سؤالها أي بيش بركيسان أي رمضان. ما أنت برنامج كان واحد إنه مرتيع الشيخ محمد عبد محمد أو كم إذا علومه دقمة اللوق قبل كجدو. مركور الشيخ كسود برتنا جنالك مان أوفيشيال أديو ماتسن. جزاه الله خيرا شيخ عبد الرحمن وان كاغا مهنقيا مارتي سو دوينتا ايغو سو دويشين برتاada youtube-ka maan official runtii waa aad baan kaaga mahadnaqayaa sida aad ka wanaagsan oo bulshada uga qanciso soo gaarsiinta aad khayrka soo gaarsiiso maadaama aaladan maanta ay tahay aalad daaxadayna laba af leh sharna loo adeegsan karo khayrna loo adeegsan karo inaad dadka maanta khayrka soo gaarsiiso runtii aad baan kaaga mahadnaqayaa jazaakallahu khayr baan leeyahay waana ku dhawahay waadna mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeena maanta waxa aan ku eegi doonaa inta badan maadaama aan ku guda jirno bisha barkeysan ee Ramadaan qaasatan 10kii dambe ee bisha Ramadaan inta badan waxaan shaqo wax ka weydiin doonaa su'aalooyinka bisha barkeysan ee Ramadaan horay aan uga barateen inaan culimo kale halkan aan soo fadhiisino balse maanta martida waxaan nooga yeeshay Sheekh Maxamed Abdi Maxamed Sheekh marka hore haddii aan su'aaleyn u guda galno su'aasheena koowaad Sheekh Sailkan waxa uu leeyahay taariikh ahaan soonka xilliga la farad yeelay bal wax nooga sheeg بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سؤال جوابتيدو عندي أن نسكت إنه وحين غنيسا بشهر رمضان وحال فرض يالي بشهر شعبان سنة لبعد هجرية أنا بشهر شعبان حق سنة ممكن في هجرية سنة لبعد هجرية أيال فرض يالي sheekh Sailkan waxa uu leeyahay waa maxaysoon bal maadaama dadka inta badan ay maqlaan soonkii waxa ka dhiman maalmo kooban soonkii waxa ka dhiman bari ama maanta waa la leeyahay inkastoo yaani micnaha soon dadka qaar aysan xigmadiisa aysan fahansanin sheekh Sailkan waxa uu leeyahay waa maxaysoon Sheikh Abd Alrahman jazakallahu khayr waa su'aal muhiim ah su'aashaas markii jawaabteedu waxay noqonaysaa labo inaan qeexno ama cadeyno soon markii la yiraahdo marna wuxuu ku dhacaa xagga luqada carbeed maxaa soon lagu yiraahdaa marna sharciga islaamka maxaa soon lagu yiraahdaa marka hadii aan ku hormarno marka luqada العربية oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa uu ku soo degay maxaa soon lagu yiraahdaa culimadu waxay yiraahdaan waxa la yiraahdaa markii la xadeynayo ama la tacriifinayo al-imsaak al-mutlaq الإمساك المطلق ومعنيه هي أفهيسي أما كتشوكسي وشيء معناه مطلق ما كل ليه هي إمساك جالس وحسوق له إمساك عن الكلام إمساك عن الجري أو معناه صعد كل جاي يستاجه مركا كيستاج أما كتشوكسي جود وي مركا تاسوا حق اللغة لكن شرعي مركا اللي يراه علماء تعريف بلام يمريا هل مدى وكم مدى دان سواق هذا وحي يرهدان الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ومن سائر المفطرات مركز أولا إيماني أرماس بالنية التعبد لله سبحانه وتعالى بالنية التعبد من الفجر لقبل الله من طلوع الفجر لقبل الله والصادق إلى غروب الشمس انتاس إن المركز أفهيسته معناس مركز عندي عندك وشرحنا وإن لقى استاغو عنيد يعبد يجماع يدمان وحيالها وحفريه الله أرنتاس مركز أولا إيمانها هي بالنية التعبد نية التعبد مركا لأن هاي وحامياشا قبل حينينا انت سنداد اوغا استاكتي اديغا عافمات هذا وحاول عنتدي باي كاي استاكتي اما عبدي باي كاي استاكتي اما الجماعة باي كاي استاكتي اديغا تقتروا كيري واتكو تشيرينيسا اسكدا نية التعبد تاس مركا لما يراهد وين ارنتان الله تمادو بالنية التعبد محيي النبي عليه الصلاة والسلام وسجل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواقف كسته waxa uu ahaanay marka wixii uu niyeystay marka niyatu ta'abbud alla caabudid niyadeedu waa in la timaado arintaas marka goormay bilaabanaysaa min al-fajr sadiq laga bilaabo fajrka laba fajr weeye fajr kaadib iyo fajr sadiq way ka bilaabanaysaa marka waxayna ku egtay ilaa qurubi shamsi kaas ayaa marka sharci ahaan la yiraahdo Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Sailkan waxa uu leeyahay arrimaha qofka muslimka ee soonka ku waajibiyo maxaa kamid ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال شاس جوابتي وحين نغنيسا
وعندي أنا سؤال أن حذينه arrimaha qofka muslimka ku waajibiyo soomka waa macnaha waxa loo yaqaan shuruud wujuub as-sawm shuruud wujuub as-sawm marka waa shan arrin ayaa qofku markii laga helo aan leenahay soomka waajib ku yahay shantaas arrin midka koobaad ugu horeeyo waa islaam qof gaal ah soom ku waajibi maayo marka waliba shardigan aan shardu macnaha islaamnimada qofka loo shardinayo soomka kaliya ma aha cibaadaadka dhammaan waxa loo shardiyaa islaamnimada soo loo shardiyaa shardiga labaad oo iyaduna muxuu ahaa waa aan qofkaas ka dalbayna soomka aan leena waajib ku yahay aan laga rabo waa takliif marka waxa laga wadaa qofka inuu yahay qof qaangaar ah andara caaqil waa inuu yahay oo meesha waxa ku baxayo cunug yarka ahaa iyo sidoo kale qofkii waalnaaba markaas ku baxayo shardiga saddexaad oo iyaduna kamid ah waa shardiga loo yaqaan al-itaaqa karitaan qofku waa inuu kari karo soomka idaaqadaas marka waxay leeyihiin sababta karin waaga keenaysa lama noqon karto in ay noqoto qofkan xisi ahaanba inuu kari waayo sida qofkan waa qof daa ama qofkan waa qof maaragtay muxuuha xanuunsan xanuun aan caafimaadkiisa la rajaynaynin taqaatiirta islaamkuna ay sidaas marka soo gudbiyeen ama qofkan sharci ahaanba u kari la'yahay oo sharci ahaan maxaa miisaal noqonayo gabadha waa xaa'ido ama waa nufaso gabadha marka xaaidada ah waa laga yaabaa haday maanta cuntada iska celiso ama cabitaanka iska celiso inay maartay kari karto laakiin sharciga baa u diiday oo sharci ahaan oo ma karto marka idaaqadaas ayna anu shardan qofka waa inuu kari karo sharcan waxisan waa inuu kari karo shardiga afraad waa as-siha caafimaad weey qofka xanuunsan asna ku waajib maayo waxa leena qofka waa inuu yahay qof caafimaad qabo waa inuu yahay shardiga ugu dambeeyo waa al-iqaama ayaduna waa qof nagi oo degan waa inuu yahay una noqonin qof musaafir ah shanta shardi hadii la helo waxa leenahay qofka muslimka waxa ku waajibaya soom ayaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala alam sheekh sayladan waxay leedahay ducada ruux la afuriyo in uu duceeyo qofkii afuriyay waa maxay ducada laga rabo maadaama aan waxay tahay dad badan ay jiraan inay afuriyaan qof walaalkooda ay duco kale u duceeyaan balse ay jiraan ducooyin muhiim ah oo qofkaas laga rabo inuu duceeyo الله أكبر إن شاء الله. قفك ولالك أو كوافريي وحال الربعين أتراضه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ساسنا دقول حسال الغربة ومعنيه دو نقنا هيو أكتينا كوافر عندك صوما دعامكنا حقنا ددونا أكسن ملائكتنا هين دو حسال كسلس. ساسنا نقنا sheekh sayladan waxay leedahay magaceeda ku soo koobtay Faaduma oo joogtay Muqdisho Soomaaliya daadiyaha barnaamijka iyo sheekh Maxamed waan in salaamay marka hore halkan waxa leenahay waan ka hadnay sheekh bal wax noogu weydiiyay faa'iido ay leedahay Laylatul Qadriga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سؤال مهمة ونباهن إن فاهن يوم عرطي عدين بلان لقد بحيوه هندين أنا صاقبنا وسؤال ودعيصه محيطه فائدة أبينك ليلة القدر كنت وفائدة أدوين إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كيسا وكعديي إنه تهبين كاس هبين أما الليلة مباركة هبين بركيسا وهبينك قرآن كلا سودتي جملة سلوك له هبين كاس عملك وناكسن أو لقبته وحوك خير بدنيهاي كم بلاد عملك لقبته أيوك خير بدن عمل وناكسن كم بلاد لقبته وعك خير بدن هبين كاس عملك لقبته أياك خير بدن سلوك له هبين كاس ملائكة أيا سود جيسو يا ملك جبريل وهبين مركز سلامة يا النبت قليا سدوا الله سبحانه وتعالى شيء وهبين شأن جيسي أرن كيس اللي جسود شيء صورة كاملة الله الله يو وهبين لحدده ولا تحديد يا مقاديرته سنة كصوص الله وحد عيال لا تانجو ولا قدره وهبين قفك استاجسوا إلى الرميسان أجرنا حساب سنة الله نافع يدم بجيسورة وهبين كأوفر لبدن هبين هذا السنة كأوفر لبدن وهبين مركز ليلة القدر ومدان أي مركز أقارتها أو ومدان أقارة الناس يمسكوبنا والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ وحنا أنا وحكي ويديو ما دام أن كجر نبيش بركة سنة رمضان خاصة طبعا في جنبه وحلي رادو حاجة مركي جبتها بيش بركة سنة رمضان وحلو سوينتي والله سكات الفدري ما دام برشة الصومالية أنت بدنا كتاين تاي خلاف
marka bal waxaan rabaa inaan wax yar nooga tiraadid maadaama ay bulshooyinka Soomaaliyeed sida tooska hadda nogala socoto barteena YouTube-ka ee Man Official ama sidoo kale barteena Facebook ee Cabdiraxmaan Xuseen kalina wax yar nooga taagootiid Zakaatul Fitri insha Allah. Cabdiraxmaan jazakallahu khayran waan kaaga mahadcelinayaa mas'aladaas marka Zakaatul Fitriga ku saabsan waa mas'alo muxaadaro kaligeed u baahan laakiin de aan soo khulaaseeyo Zakaatul Fitrigu xukunkeedu waa waajib nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisiisa sida laga leehanayo ama laga fahmayo saas daraadeed marka waa ijmaac inay waajib tahay waxa la bixinayo oo raashinka ah haddaan ayadu sheegno miqyaaska ama qadarka uu noqonayo waa 2 kiilo iyo bar markii aan ka tagno culimadii tiri waa 3 kiilo inuu muxuu ahaa way badiyeen aan ka soo qaadno kuwii tiri 2 kiilo iyo rubac weeye ama tumi weeyna inay yareeyeen aan ka soo qaadno dhexdhexaadku waa 2 kiilo iyo bar waana qowlka raajix ah markii la fiiriyo halbeegyada iyo maartay sanad kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maartay loo tiiriyay 2 kiilo iyo bar haddii wuxuu halbeeg yihiin oo waxyaalahan garaamka ay yihiin weeye markaas garaamada ah oo macnaha miisaanka la saarayo haddii ayna ahayn shoodan aad taqaanaan oo muxuu loo yaqaan teknolojiinka loo yaqaan afarteed ayay markaas noqonaysaa ama si kale intii loo dhigo 2 sus waxa loo yaqaano badarka markaas la bixinayo ama raashinka la bixinayo waa quutul qaalibka sanadka inta badan wax la cuno dadka laga rabana waa dadka muslimiinta dhammaantood oo ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen ama ha soomeen ama yeesu soomin dhammaan waa laga rabaa dadka laga bixinayana waa dhammaan dadka muslimiinta noocyadooda kala duwan adoonkooda iyo xortooda kooda weyn iyo kooda yar kooda dumarka kooda ragga dhammaan waa laga rabaa qof kaste oo bishii Ramadaan soo gaaray bishii Shawaal oo soonfurna qayb kamid ah markaas soo gaaray oo habeenka ciida gaaray ayaa markaas laga rabaa waana qofka markaas ay ku laazimaysana waa qofkii heli karo quudkiisa habeenka ciida iyo maalinteeda wax ka dheeraad heli karo marka waqtiga la bixin karo oo ay banaanta iyadu naftirkeeda hadii aan cadeyno waqtul fadiila waxa weeyaan inta u dhaxaysa salaada subax iyo ciida inta u dhaxaysa waqtul fadiila waqti marka jawaaskuna waxay culimadu yeeleeyeen wax ku kala aragti duwanaadeen waqtiga ugu raajixsan saxaabadana ay ku bixin jireen waa markuu soomku ka dhiman yahay maalin ama 2 maalin sidaasayna saxaabadu ahaayeen kuwa ku bixiya Abdullah ibn Umar oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska Zakaatul Fitri ka warinayo ayaa marka saas u sheegayo saxaabadu soonka ayada ay ka dhiman tahay maalin ama 2 maalin ayay bixin jireen waqtul jawaas baan loo yaqaanaa والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ وحان كان حكي له وحير مادامو هبينك اي تاي نسك دم بقوليه بري واعي هوين كور كله markaas dhasho cunugaas oo kale muu ku waajiba Zakaatul Fitri. Cabdiraxmaan waa su'aal muhiim ah sababka waajibiya hadii aan cadeyno waxa ka cadaanaysa su'aasha ay weydiisay jawaabteeda sababka waajibi waxa weeyaan waa in juz Ramadaan kamid ah iyo juz bishi Shawaal kamid qofku uu gaaro hadii aan saasnayna marka waxa ka baxay marka cunugii dhasho markii la afuro ka bacdi dhasho ama gabadhii la guursado markii la afuro ka bacdi lagu meeriyo صوم كما واجب يوي أي معناه زكاة الفطر كما واجب يسوي زكاة الفطر كما واجب قفك وحشر دي إنه رمضان قريب كسو جاره سيدا وكله بيش شوال قريب كسو جاره تصار قفك عنده ودنت وقتك كوي تبانك قرب نما عنده ودنت وبيش رمضان وما أنت ودن بس عنده ودنت كما واجب هاي سواء محيط هاي مون جار شوال قريب كم ده قفك عندي ونا رمضان قريب كم ده سو جارنا كما واجب هايو ساس دراد نركو على هاي قبل الدشة بعد المغرب وبينك عيدة كما واجب عنقاس زكاة الفطر كما واجب والله أعلم. شيخ سائل كان وحولي هاي حدا بروح نيودي إنه عفره سونكي سواء ما حي وحا كواجبه. شيخ عبد الرحمن جزاك الله خير وسؤال مهم قفكي نيودي إنه عفره ما حا كواجبه هيو. ثلاث مركب وحاول قفكي نيودي إنه عفره ورتصونك وكفرين هاي. فوحا ويان نيو كسومي عندنا وان نيست إنه أفره قفكاس مركا وحان لeenahay maalin Ramadaan hadii ay tahay soomku waajibka uu yahay wax sabab ah oo maanic ah oo inuu afuro keenayna markaas aysa jirin oo mesela qofku waxa laga yaabaa inuu afuray oon halis aan uu afuray ama uu afuray inuu gaajo halis uu afuray waa macna kale laakiin qof iska maartay amdi iska afuray maalin Ramadaan afuray oo niyadaas la yimaaday
uu dambaaba ilaahay waa inuu toobad keeno waxaa kaloo ku laazimay maalintaas inuu soo qadeeyo sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waa maxay calaamaadka lagu garto laylatul qadriga haddii aan la kulmo habeenkaasna waa maxay ducooyinka aan ku duceysanayo barnaamij jazakallahu khayr waa su'aal muhiim ah su'aashaas marka jawaabteedu waxay noqonaysaa waa maxay calaamadaha lagu garanayo laylatul qadriga habeenka calaamadaha aan ku fahmi karo inay caawa laylatul qadri tahay sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ku sugan su'aalo badan macnaha calaamad badan calaamadahaas oo qaar lagu garanayo laylatul qadriga habeenka gudihiisa inta lagu gudo jiro qaarna la garanayo habeenka markuu dhamaado ka bacdi dii marka waxaan ka sheegno waxa kamid ah habeenka samadu ama jawigu inuu yahay habeen degan sidoo kale jawigu inuu yahay mu'tadil midaan kululeen qabowna ahaan dhaxdhaxaad iska ah inuu yahay qorraxda subaxaas waxay soo baxaysaa habeenka laylatul qadri subaxiisa qorraxda waxay soo baxaysaa ayadoon shucaac lahayn wax shucaac ayadoon lahayn ayay soo baxaysaa dadka cibaadeysanaya adoomada ilaahay cibaadeysanaayo waa habeen ay ku sugan yihiin nashaad iyo firfircooni laga fahmay iyo deganaan iyo qalbigooda maartay xasilooni laga dareemayo sidoo kale habeenkaas xidigaha ma dhacaan oo xidiga dhac ma lahan sidoo kale waa habeen marka iska degan jawgiisu degan yahay nabadgelyo ah saasay marka culimadu sheegaan axaadiista nabiga laga fahmayaa marka habeen kulul ma ahan habeen qabowna ma ahan waa habeen dhaxdhaxaad ah qorraxdu markay soo baxaysaa niri subaxa shucaac ma lahan oo shucaaca markii qorraxdu soo baxaysa la arka ma lahan inaas ayaan marka kusoo koobina wallahu a'lam sidoo kale su'aasha waxa ku jirta handii aan garto habeenkii maxaan ku duceysanayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam umuna Aisha ayaa su'aasha weydiisay wuxuuna nabigu u sheegay kaleey salaatu wasalaam inay marka tiraahdo اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سلاس إني تراهدو شيء قف كستو مسلم من كساس الله يايو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ساس أيو قف كدو حسني والله أعلم حاتنا داود الكسو دوادا برنامج كينا قيبتين اللواد سؤال ودينتا شيقا خاصة انت كفران برتين فيسبوك أو نويماني سؤالوين كلا دوان إن شاء الله sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacii waa bashiir yuusuf caabi waxaa rabaa sheekh inaan weydiiyo saddex su'aalood xafidahullah sheekh waxay diinta islaamka ka qabto in la qoysto 6 saac oo maalinimo markii ay soon tahay sheekh isla saa'ilka waxa uu leeyahay su'aashiisa labaad tan kale dhegta geed in la geliyo ma bannaan tahay adiga oo sooman sheekh isla saa'ilka su'aasha saddexaad ayaa waxa ay leedahay sidoo kale waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa cadayga ma bannaan tahay wixii ka dambeeyo duhurkii inuu qofka asaga oo sooman uu ku cadaysto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سؤال كوباد وسائلك ويديي قبيسك ما هو بنان تيقفك سائمك 6 ساعة عندي إلا جارة إنه قبيسته جوابته وحويان قفك قبيسك وقبيسن كرا حل كسته هاي للشرعية قبيسك وحكتير سيئة وحيالها نظافة ومزيلاتك شرعينا وابوري أرنتا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام مركب ما وحشي أو مانع أو ديدة ما دامنا كسو أرورين أحاديث بدن أو كهل ليس النظافة إن لاستدلالنا إساء أرورتي أو تظهر كي النظافة قادشة إساء أرورتي وح مانع أو كسو أروري قفك أسكر ريبه هينا يسجرين علماء مركب وحيليهين وأبنان تيقفك إنه قبيسته أما قبيس كاس للتبريد هو قبيسته أما شيء كلمات النجاسة وسكدغي هو قبيسته أيا كان قسل جوح ونقض بقف كاس قبيس وأبنان يهي سداس أيانا مركا كل شيء نقف كاستو سأشاس كقبي مارتين لو عديو الدلة هدي قبيس كي نظافته كسر أرتينا aad bay u badan tahay meeshan lagu ma soo koobi karo maadaama saa'ilku su'aashiisu ku ekeed ma bannaan tahay waxaan leenahay haa way bannaan tahay wallahu a'lam su'aasha labaad saa'ilka ka timid waxay ahayd qofka asagoo sooman dhagta qori ma gelin karaa taasoo macnaheedu ay ka dhigan tahay ma dhukayan karaa qofka suu kale u yaqaan Soomaaliga dhagta qori ma gelin karaa waxay ka dhigan tahay qofkaas ma dhukayan karaa طبعا haa way jawaabtu waa dhukayan karaa kana mid ma ahan waxyaalaha dhagtu hadda andil aan niraan dhagtu waxay ka tirsan tahay amaakinta furan oo dimaaqda ama maskaxda ama joogka u furan
ma keenahayo qorigan in uu joof gaaro ma keenahayo dhegta un duleelkeeda bas oo caka uu ku ogyahay intaan ognahay saas daraadeed qofku waa maaragtay waa dhukayan karaa ama dhegta qori waa iska gelin karaa wax dhib ahna kuma sugna wallahu a'lam su'aasha saddexaad oo saa'ilku isna soo weydiiyay waxay ahayd qofka saa'imka ah bacda zawaal ama bacda duhur wixii 6 saac ka dambeeyo ma u bannaan tahay inuu cadaydo mas'aladaas marka xogaa waa isdul taagayaa maxaa yeelay dad badan baa waxaa laga yaabaa inay wax akhristeen su-aasha markaasaan u caddeeyo macnaheedu jawaabta haddaan ku hormarahaa wuu cadayan karaa ma jirtaa marka culimo dhahdo ma cadayan karo oo qofku waa laga reebay haa way jirtaa mas'aladu culimmadu waa ku kala aragti duwan yihiin marka haddaan soo gaabinno cadaygu waa mustaxab fi kulli xaal a'immada shaaficiyada qaar ka mid ah bal aktharkooda waxay leeyihiin bacda zawaal waa la karaahdaa karaahdaasna marka wax daliil oo muctamad ah ma haysato allahumma haddii ay dhaafi weyda xadiidka ay soo daliishadeen oo a'immadu leeyihiin la khaluufu famu saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski khaluufkaas yay culimmada qaarkood waxay ku fasireen afka waxa leebta saaran ama maaragtay wasaqda saaran culimmada qaarkoodna waxay dhaheen ma ahee waa macidada iyo caloosha xumaha harbuunka ka soo kacayay marnaanta iyo quluwul badnigaas ayuu ka imaanayaa saas daraaddeed marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis kale ku leeyahay assiwaaku mustaxabu macnaha xadiisku wuxuu assiwaaku madharatun lilfami wa mardaatun lirabbi xadiis saasuu ahaa cadaygu waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli gelinaya afkana dahirinaya shay marka ilaahay raalli gelinahaya karaaha kama suuragelayso shay samaynta la sameeyo ilaahay lagu raalli gelinahayo oo raalli ahaansho rabbi lagu gaarahaya karaaha kama suurta gasho sidoo kale waxaa soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu xilli kaste oo maaragtay salaad uu tukanahayo ama xilli kasta oo la weysaysanayo inuu nebigu yidhi cadaygu waxaa weeyaan waa mustaxab lawlaa an ashuqa calaa ummatii لأمرتهم بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواية بكسو أرورتي عند كل وضوء رواية بكسو أرورتي مركز تاس وحيس ويدين مضن الدين اللي عند كل صلاة عصر با كم إذا صلاة الظهر با كم إذا قفكن واسومية وأنا بعد الزوال حديث تاس مركز وحي تسنى استحباب كيسة حلي كستئني ليلا والنهارا سيداس مركز مسألة وحا راجحة هذا يقول إنه وحكا لها كسوغنين وقفكو وعضيان كرو والله أعلم. شيخ سائل كان وحاولي هاي السلام عليكم مقعي وعبد الرحمن أحمد حسين شيخ وحاودين يا لو سؤالات شيخو سكات الفدر قف دين لقول لي هاي سكات الفدر مكو واجبيسا شيخ إسلا سائل كلابات إسلا سؤاشي سلابات أيا وحي تاي سكات الفدر دين ما لقو بحين كرا دين حدي وقتي آذن هيرين قرشكي آتكسو قدي لها راشينكا ما تسند. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سؤاشو سائلك نويديي قف دين لقول لي هاي زكاة الفدر مكو واجبيسا جوابتي ذو وحي تهي ها معايا لي dadka maanta muslimiinta ah deyntu waa shay lagu tacaamulo marka ma maaneynayso ma diidayso qofkan asagoo deyn qabo oo deyn waliba muxuu ahaa laga yaabo inuu qabo ay badan tahay ayay handara zakaatul fidriga ku laazimaysaa wax isdiidayana ma ahan saas daraadeed waxa uu zakaatul fidriga laga fiiriyo waxa weeye qofka habeenkaas ciida ah ma helayaa quudkiisi asaga habeenkaas ciida iyo maalinteeda wixii ka dheeraad ha bixiyo qofka marka saas la leeyahay deyn inuu qabo waa suuragal inuu qabina waa suuragal saas daraadeed marka warka oo kooban waxay tahay zakaatul fidrigu way ku laazimaysaa zakaatul fidri qofka inuu ku laazim waa qofka loo yaqaano faqiirka ama mucsirka oon helaynin habeenkaas wuxuu quuto iyo maalinka ciida iyo habeenka ciida wuxuu quuto aan helaynin laakiin deyntu ma manciso inay zakaatul fidri kugu laazimto saas daraadeed waxaan leenahay way ku waajibaysaa su-aasha labaad waxay tahay zakaatul fidri ma ku bixin karaa deyn masaladaas marka dhowr jeer bay imaaday qofkan haddii ay tahay xaaladiisu qof faqiir ah aan waxba haysanin oon helaynin quudkiisa habeenkaas iyo maalintaas qof aan quudkiisaba helaynin hadday ay tahay lagu kallifi mahayo inuu deyn raadiyo oo dhihi mayno maadaama quudkii aad quudan laheyd
caawo iyo muxuu ahaa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda aad weyday dayn raadi lagu kalifi maayo laakiin asagoo handuu iskallifo oo dayn soo qaado oo zakaatul fidriga uu ku bixiyo way ka ansaxaysaa marka sidaas aynu culimadu u suureeyaan qofka haddii uu wax soo qardisado ama wax soo daynsado ama wax soo amaahsado asagoo mucsir ahaa faqiir ahaa saasna uu zakaatul fidriga ku bixiyo way ka gudmaysaa wallahu a'lam sheekh guntiga gabagabada anagoo barnaamijka soo xirayno anagii daawadayaasha hadda sida tooska noo daawanayso maadaama aan ku guda jirno bishii barakeysaneed ee ramadaan khaasatan tobankii ugu dambeeyey oo ugu fadliga badnaa maxaad nagu baraarujineed waa su'aal muhiim ah oo maaragtay aan isleeyahay qaayaheeda iyo qiimaheeday leedahay wasiyadayda aan marka u dardaarmay dadka muslimiinta ah waxaan isleeyahay 4 arrin ayaan rabaa inaan anoo naftayda ka bilaabay aan muslimiinta u dardaarmo arrinta koobaad waxaa weeyaan bishii ramadaan gabagabadii bay maraysaa in maaragtay la dadaalo maxaa yeelay camalka khaatimada ugu dambeeya ayaa laga fiiriyaa in 10kan dambe aan ku jirno aad loo dadaalo juhdi lagu bixiyo sidii laylatul qadriga loo raadin lahaa arrinta labaad oo ayna aan muxuu ahaa aan maaragtay meeshaan uga faa'iideysanay waxay tahay arrin aan isleeyahay qof kasta oo muslim ah arrintaas inuu wax ka yiraahdo weeyaan waa arrinta ku saabsan habeenka markii tahajjudka la tukanayo in mikrofoonada markii la sii daayo oo qur'aan la daaro oo dadkii maaragtay aad ay ugu dhibayeen arrintaas marka wax yar hadii aan ila faahfaahiyo waxay tahay inaan mikrofoonada aan la qaybta samaacada kore samaacada tuna waa tu gudaha midda kore inaan dadka lagu sii daynin salaadan sunnada ah ma ahan iclaan sharciga oo ma sameeynin dadka qaar baa xanuunsan qaar baan ba tukanaynin qaar baa iska waaridan soo gaarin qaar baa ayagu hore iskaga tukado gurigooda ku tukaday in marka dadka maxaa la dhiba ma ahan nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenada kamid ah asagoo socdo wuxuu yimid Umar oo codka qiraa'ada salaatul leelka kor u qaadayo iyo Abu Bakar oo hoos u dhigayo subaxii marka uu yaray Umar oo xalam maxaad kor ugu qaadaysay Abu Bakar oo adiguna maxaad hoos ugu dhigaysay Umar marka wuxuu yiri rasuulka Ilaahay waxaan kor ugu qaadayo qofka hurdoonayo ayaan hurdada ka kicinahayay sidoo kale waxaan cayrinayay shaydaanka ayaan cayrinahayay nabiga Umar mikrofon ma haysanin wuxuu ku yiri Umar oo hoos u dhig Abu Bakar adigana maxaa saas u yeeshay rabbiga aan la munaajoonay waa maqlayo nabiga Umar waxa la yiraahdaa adigana maxaa kor u qaad cod macnaha codkaaga hoos u dhig oo meesha hadda kor uga qaadayso hoos u dhig Abu Bakarna waxa la yiraahdaa adigana kor u qaad oo maartay codkii maxaa aad hoos u dhigaysaa adina wax yar ku dar meeshaas marka waxaad arkaysaa waxaan leeyahay mikrofoonka qaybta sare hal la jaro waxaan leeyahay dadkaas marka toosinay dadka oo samaacadaha kor u qaaday Ilaahay ka cabsadeen waxa laga yaabaa khayr inay la joodaan laakiin khayr ma dad muslimiin ay dhibayaan muslimiinta in la dhumayna waa shay xaraam ah arrintaas marka muslimiinta dhamaan waxaan leeyahay mikrofoonada la sii deynayo iyo quraanka lagu daaray dadka war dad baa xanuunsan oo caafimaad qabin war dad baan ba tukanaynin war dad baa laga yaabaa ayagu inay tukadeen oo muxuu ahaa gurigooda iskaga tukadeen dadka yaan la dhiban oo la waswaasinin oo qiraa'ada lagu waswaasinin nabiga kaleey salaatu wasalaam asaga la yajr ba'dukum an ba'din qaarkiin qaarka qiraa'ada inuu kula jahrin marka saas daraadeed waxaan leeyahay mikrofoonada la sii deynayo waa arrin ismi iyo dambi laga qaaday ajir laga ma helayo intaasaan aynu sidoo kale muslimiinta u dardaarmi lahaa khulaasada ugu dambayso aan ku soo gabagabeynay wasiyadaydu waxay tahay maalinta ciidda ah dad badan oo masaakiin oo duruufaysan baa jiro dadkaas muslimiinta ah oo duruufaysan zakaatul fidriga in la siiyo ayay nabigu wuxuu leeyahay waa duhratan lis-saa'imi min al-laqwi war-rafath wa du'matan lil-masaakiin masaakiinta marka in la farax galiyo hadda adigu faraxsanto caruurtaada ku iidayaan oo raashin aad haysato dad baan ayagu faraxsaneen dadka masaakiinta oo danyarta ah in loo naxariisto ayaguna la farax galiyo oo ciidda maalinkaas laga farxiyo oo kii qof u jari karo uu jaro kii dhar u gadi karo uu gado kii zakaatul fidri siin karo uu siiyo oo farax ay wax ka wadaagaan inaasan ku soo koobaya wallahu subhanahu wa ta'ala alam sheekh aad iyo aad baa u maasanta waana kaaga mahadcelinaa sida qaas kale aan uga aqbashay maanta barnaamijka su'aaleena inkastoo aan ugu soo boqotay studio-na qaaska ah daawadayaal inta barnaamij midkaan la mid ah aan ku kulmi doono anaga iyo sheekh maxamed cabdi maxamed waxaan idin leenahay kulanti dambe oo xiiso leh khiyaaray sidaas ina badgelin إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق تمر بنا الأيام سرعة